كنت عساده إن إلهي مرنا ونغشيد أنا كسور سعر ميلان كنول إن أذكر فليوغاس waxa weeyaan fuliyo taleefankayga laga shubtay isagoo kaliya tan ma aha dhaatadeedii professiga ahayd oo dhan ayaa taleefankayga laga shubtay oo taleefankayga gacanta ayaa la isticmaalayay muuqaalkan iyo sidoo kale muuqaalo kale ayaa laga faafiyay gabadhan oo lagu magacaabo Hibaaq Gubaad haddaba gabadhan ayaa afka furatay waxayna tilmaamaysaa sidii loo jabsaday ciwaankeeda xogihii qaaska u ahaana loogu faafiyay baraha bulshada haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin muuqaalkeeda iyo sidoo kale muuqaalada kale oo ay sheegayso kuwaas oo ku baahay baraha bulshada sida qarsoonida ahna looga xaday akoomadii laga jabsaday haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin macluumaad ku saabsan iyo sidoo kale muuqaaladan oo dhameystiran faldan marka hore muuqaalka la garay si uu faafo una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed ayna xaqiiqada rasmiga ah u helaan haddaba daawadayaal maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada way Soomaalidu isticmaasho waxa ku baahay muuqaalada gabadhan oo lagu magacaabo Hibaaq Gubaad gabadhan waxay ahayd gabar majaajilad ah taas oo caan ka ah dhammaan deegaanada ay Soomaalidu degto hase yeeshee la yaab iyo amakaag ayay noqotay markii gabadhan oo ilmeynayso iyo sidoo kale muuqaalo kale oo iyadu ay leedahay lagu baahiyay baraha bulshada arrintan ayaana waxa ay noqotay mid isweydiis badan waxaana dhammaan marka aad soo gashay YouTube-yada iyo sidoo kale Facebook aad arkaysaa Hibaaq Gubaad oo u ooynayso guuleysinba haddaba inta aanan kula wadaagin Hibaaq oo ka hadashay sababta ka dambaysa muuqaaladan iyo waxa ka jira arrimahaasi bal marka hore aynu isla daawana muuqaalka lagu baahiyay baraha bulshada kaas oo ay gabadhani ilmeynaysay والله ما أنت كور ما رميسان نيدينا من قلنا وحكست الحين ياللي معنا ورسل قلنا سلنا اسمه إبراهيم وحين دحيا له لما لكن ما توين قصة له رميسنا سووا رميسنا محيدي هرتي دو تحدون أركيا أحسن إسا كنت عساده إن إلهي مرنا ونغشيد أنا كسور سعر ميلان كنول إن أذكر haddaba Hibaaq Gubaad ayaa markii muuqaalkan iyo kuwa kale oo aanan jeclaysan inaan idin la wadaagno markii ay ku baaheen baraha bulshada waxay maanta iska soo duubtay muuqaal ay arrimahaasi kaga jawaabayso waxayna sharaxaad dheer ka bixinaysaa sababihii ay muuqaaladani ku baaheen baraha bulshadana ay u galeen haddaba waa tan Hibaaq oo arrimahaasi sharaxaysa fuliyo waasan doonayna faahfaahin idinka siiyo fuliyogaas waxa weeyaan fuliyo taleefankayga laga shubtay isagoo kaliya tan ma aha dhaatadeedii professiga ahayd oo dhan ayaa taleefankayga laga shubtay oo taleefankayga gacanta ayaa la isticmaalayay waxa maxay ahayd hawshan ay igu socotay 2020kii bishii shanaad ayay ku bilaabantay iminkana waxa la joogaa 2021kii bishii saddexaad waxay igu socotay muddo 10 bilood kadani waxa igaga bilaabantay WhatsApp baa la iga soo hanjabi jiray markii dambe waxa la wadaagay waxyaabihii barafsiga ahaa aniga taleefankayga ku jiray ayaa la soo diray oo la igu soo hanjabay Ethiopian tagay card baan ka soo furtay waxaana ku sameysay WhatsApp-kii sidii horeba way ka darto dadkii baa balog la saaray ay igu jiray aniga ay igu oranay Hibaaq waan la balogtay haddana kadib waxa la sameeyay asxaabteeda waxa loo shir gareynay wixii barafsigayga ahaa oo isla numberkayga anigu aan isticmaalay looga shir gareynay anaga loo qofka kama arkayo laakiin qofkii markaan arko ama uu screenshot soo qaado numberka wax looga diray waa kaygan aan anigu isticmaalay Ethiopia ka soo furtay marka sheekadu halka ay marisay waan iska joojiyay WhatsApp oo dhan baan iska joojiyay waan iska daayay Facebook-gayga baa loo soo dhigtay Facebook-gayga ayaan arkay maalin sano joogay waxaan ka Facebook-gayga oo aniga layga saaray layga loo gareeyay galbaan siri ma jiro waxa dhan waa khalad bal igu waxa dhan waa maxay weeynaad geliso dhan waa khalad marka dad baan la xiriiraan sirida waxaan aqoon bay u leeyahay ama IT asxaabtayda dadkii baa isku daynay soo celiya laakiin waxay ii sheegeen ay ogaadeen in numberkaygina laga saaray Gmail-kii ugu jirana laga saaray maadaama qofkan si وأود لي تلفون كي جسانو استعماله سلا مدينو استعماله هذا نص هبين بس هذا الصباح دي مركن صوت توصي أيان إنستغرام كي يحرم عنك إنستغرام كي أيان هذا نص سيدي سلا جس حبتك عليه يعني إسلا سيدي بيجي شوابينه إسلا سيدي فيسبوك قوم بالله كده فرحان كقاضي يو إنستغرام كي مهرتا أيان أنا والي جلسوا هالليون وحبا لي جلسوا دري والي جلسوا هنشبي هل كان شوغا ليسوا شيء marka kadib saas marka aan iska isticmaalaya WhatsApp-kii meherada oo meherad ahaan u isticmaalaya laakiin aan u isticmaalin dadkii asxaabtaydi kale ayaan maxay ahayd call-kayga caadiga ah taleefankayga caadiga ee gacanta qof hadaan waco ama uu soo waco ama qofka SMS caadi iyo call-ka
taleefanka gacanta aan u diro qofkii waxa la wadaagay wixii privacy-gayga ee uu qofkani dadkani hayeen ayaa la wadaagay qofkii baa dadkii un baa igu oranay waxaasana loo soo diray waana qofkan isla markaa waco ama aan ku save gareeyo contacts-kayga Apple ID-gan iska bedelay ayaa waxaan tagay meel shirkad halkan aan maxay ahaydey macmiil la ahay oo iPhone-nada waxa hagaajisa dadka badankooduna waxay ii sheegeen inay Apple ID-ga noqon karto oo taleefanka iPhone baan inta badan isticmaalay iPhone-kana security-giisu adag yahay baa la yiraahdaa markaan inanka inamada u tagay waxaan ku dhibay wala Apple ID-ga niga bedelay waa leega bedelay 3 cisho markaan isticmaalay Apple ID-gi ayaaba taleefankii meherada WhatsApp-keedii laga soo daray screenshot leegu WhatsApp waan haynaa Apple ID-ga cusubna iyo password-ka oo wada socda oo aan xariiqo ka khaldanayn baa la soo daray Facebook-gi ayaa laga soo raadiyay laga soo hadlay laga soo hanjabay Facebook kasta oo qofkaasi uu igala soo hadlo ana waan iska balow gareynay oo markasta uma jaxan waayo qofka maanta tirsaday waxyaabaha noocaas ii daba galay wanaag iimu haynin ama maanta wax gacan binaadan iga galay kalsooni kuma qabo inaan iga baahaynin oo aanay umada la horgeynaynin qofka maanta waxa iga dirsadana wanaag iimu haynin ana inaan maxay ama uu wanaag iga helo iyo jiljileec markasta maxay ka duulay ama aan diiday maalmo kadib waxaan go'aansaday inaan taleefankayga oo dhan isaga u tuuro maadaama aan maxay wax ii baxsadaba aan waayay oo aan maxay taleefan cusub iska dalbado Instagram cusub samaysto Facebook-gayga iskii ugu jiray kula soo wareego WhatsApp aan waddanka laga lahayn aan samaysto markuu meel uu igala hadlo waayay waa keenaa meel walba iska moosay uu iga soo galay wuxuu sameeyay wuxuu la hadlay dadkii madaxda aan wada shaqeynay sida agaasimaha Universal TV ama director-ka filmaanta idin soo gudbino iyo dadka la asxaabteeda oo ku yiri maxay ahaydey inta sawirradii wixii u diray yiri gabadhaasana u baahanay meelan kala xiraan degdeg ugu baahanahay oreedo qofkan markasta wuxuu rabay inuu si physical ahaan inuu ii dilo oo maskaxda iga qabsado oo uu si physical ahaan ii waalo markasta ay sababtu tahay muu doonin habeen inaan ka nasto maalinba wax cusub inuu ii soo gudbiyo maalinba barafsiga uu kala reebo ana markasta waxaan ku adkeysanayaan ku calwil adeegay inaan qofka madaxayga hoos ugu geenin oo markasta waxaan ku lahaa sababta u dirsta u isticmaal inana deysma naqaan sababta waxa ila soo xidhaa iska yarba marka meel kasta igala hadlana maxay ahaydey waan iska saaray oo maanan u jixin haddaba daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad daawateen oo aad ka bogateen muuqaalka gabadhan waxaan leeyahay qalbiga Allah ku qaboojiyo runtii gabadhan Soomaaliyeed waxa ku dhacday arrin laga xumaado gabdhaha Soomaaliyeed ayaana sidan oo kala la kulmo iyagoona laga baahiyo xoga iyo macluumaad qaas ah kuwaas oo moobiladooda ugu keysana kadibna lagu rikaatayo haddaba waxaan leeyahay ragga waa inaad ka waana qaadataan sidoo kale gabdhahana waxaan leeyahay xog muhiim ah ku kaydinna moobiladiina maxaa yeelay wax walba ayaa lagu sameyn karaa haddaba daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan daawatay oo aad ka bogatay inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo mahadsanidin